warninka hamigiisoo dhan mid qura ka dhiga buu leeyahay nebigu ilaahay humuumta kale isaga kaaga filaanaya haddaad adigu hamiga aakhire isugu geysa baa lagu yidhi oo naar ka cabsatid oo janno hunguraysid oo raganimadaada iyo taladaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo xiniyahaaga iyo ninnimadaada iyo aftahannimadaada iyo magacaaga iyo maamuuskaaga haddaad ku dalbayso adigu aakhira ay tahay meesha xooggaagu aad ku maqan tahay ilaahay baa kaaga filaanaya buu nebi maxamed leeyahay inta soo hadha marka hadduu hamigaagu naar iyo janno yihi ilaahay baa kaaga filan inta dambe amaa hadduu hamigaagu adduunka noqdo taa aad ilowdo ilaahay dan kaama laha baa la yidhi dooxooyinka dunida iyo hamiyadeeda kaleh ku halaagsamayso kolle mid baad ku halaagsamay adigoo uun warwarsan bay kaa boodiye kay kaaga boodayso ilaahay dan kama le baa la tilmaamaya qofka hamigiisu noqdo war aakhiro saan u dhaqaaqi nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofnaba ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo waa lagu ribdhaya ma dhaqaaqi kartid su-aalo shana ama afaraadoo ka jawaabo mooyaane waa taagnaanaysaa qofka ka fakeraya maantaasaad u dhaqaaqi doontaa dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi ilaa lagu weydiiye war cimrigii maxaad ku bixisay cimraa lagu siiyee saad u isticmaashay wakhtigaagii dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war cimrigu isku mid ma ahayna intii dhallinyaronimadii xoogga aad lahayd xaggaad ku bixisay dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane war waxaad xoolo shaqaynaysay xaggaad ka keentay ma xaaraan bay ahayd mise xalaal dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane xaggaad ku bixisay dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war wixii lagu baray maxaad ku qabatay aqoontaadii mid adduunya mid aakhira ha noqoto ma ilaahay bay kuu hoggaamisay ma rabbaad kaga cabsatay ma dad baad wax ku tartay mise waad ku xoogsatay uun ta diineedna waa lagu xoogsadaa haddii la rabo taa maadigaana waa lagu xoogsadaa haddii la rabo wuxuuba ma xoogsay kaa ahayd una waad ku xoogsatay mise ilaahay baad kaga cabsatay subxaanahu wa tacaala qofka mu'minka ahi maalinta aanad dhaqaaqaynin si aad uga fakartaa bay ku xidhantay haddaad fursadda haysataa waxaana la tilmaamaya ilaahay inta lagu hortaago inaad sida birta u ribdhanaan doonto aanad dhaqaaqi doonin adigoo jawaabo ka bixiya mooyaane jawaabahaad ka bixiso ayaa waxay jawaabu yihiin dhankaad u dhaqaaqayso inaad xagga janno u dhaqaaqi oo aad badbaadi iyo inaad xagga naar u dhaqaaqi oo aad halaagsami jawaabtaad kuwan ka bixisaa bay ku xidhantay ayuha alikhwa waa hubanti qofka mu'minka inuu rabbi rajaynayo oo aan camalkeennu ku filayn marnaba janno oo aan camalkeennu ku filayn marnaba inaynu naar ka badbaadno oo nebi maxamed baa leh calayhi salaatu wasalaam midkiinna camalkiisa janno kuma gelayo walaa adiga bay ku yidhaahdeen walaa anaa buu yidhi in ilaahay ugu naxariista mooyaane laakiin istijlaabu raxma baa loo baahanya ilaahay naxariistiisa saad u keensanaysaa saad ugu biiri lahayd kuwa ilaahay u naxariisto ilaahay oo waan kaa cararayaa iyo i naxariisamaya macquulta ilaahu wakhtigayga wax kala ku bixinaya i naxariiso ilaahu kuuma jeeda i naxariiso ilaahu naar ka baqi maayo i naxariiso ilaahu jannana dooni maayo i geli u xoogsan maayo i geli waa qaldanta waxa saxay waxa weeyaan ilaahu cadaabkaagan ka baqaya iga badbaadi ilaahu jannadaada hunguriga hayaa iyo jannadaada hunguriga hayaa